بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan walaalaha ila socda kuwa gadaalka daawan doono marka hore waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. dadku ma jiraan ma rabi inaan sugo maxaa yeelay gadaalay nagala qabsanayaan mawduuca markuu bilowdana waxay ku fiican tahay hadalka inuu bilowdo si ay dadku u ogaadaan meeshay u socdaan. waxaad ka codsanaa barnaamijkan inaad share dhahdaan aad gaarsiisaan maxaa la yiraahdaa walaalaha kale oo aan nala soconin. ciddii uu dhaafana waxay dib ugu daawan kartaa barta YouTube-ka ku leeyahay Cabdicasiis Maxamuud Kulmiye official. wax kale uma soo gelin, waxaan u soo galay inaan idin mahad celiyo. waxa xigane inaan ka hadalno, isku hambalyeeno, wax toosino, meesha aan u socono aan ogaano. waxaan idinka codsanaa marka hadday suurtagal tahay inaad barnaamijka sheergaraysaan gruubyada iyo maaragtay meelaha aad ku jirtaan aad geysaan si dad badan oo maaragtay arrintan qoseyso isla markaana maanta naga maqan ay dib noola midoobaan ama ay dib noogu soo biiraan. maanta dadka banaadir degan iyo maaragtay walaalaha Soomaaliyeed dhammaan maalin weyn oo taariikhi ah waay. Soomaaliya iyo maaragtay wadamada dibadda waxaa looga dabaaldegaa maalmaha xurriyadda Soomaaliya, laakiin reer banaadir maanta waxay noo tahay maalin xurriyad gaar ah oo annaga aan leenahay oo astaan u ah deegaankeena. maxaa yeelay waxaan ku soo jirnay muddo aad u tiro badan oo ilaa iyo maaragtay dagaaladii markii laga soo baxo oo sistamyada la imaado aan dhihi karno maxaa la yiraahdaa ii sheeg 13 sanadood ama 12 sano oo canshuur bixiyaal aan xaquuq iyo matalaad midna lahayn aan ahayn. adduunyada step by step waaye. ninka markuu xaaska guursado oo maaragtay jirato walacdo uuroodo cunuga dhasho garguurto istaago socdo shaqeeyo waqti badan u dhaxeeyo sabar badan inaa yeelano oo maaragtay aan ogaano meesha u socono aan la karaba. wax kale uma soo gelin, waxaan u soo galay dadkayga inaan la dardaarmo because waxyaabaha hadda socdo positive waaye, laakiin positive-ka intaa haysatida laga faa'iideysta intuusan negative-ka imaanin. waxaan rabaa inaan la hadlo dhalinyarada walaalahey ee gobolka banaadir degan oo juhdiga geliyey oo waqtiga soo geliyey oo wiilal iyo gabdho iyo maamooyin iskugu jiro oo intaas oo sano oo halgan ka socdo qayb ka ahay. waxaan rabaa kuwa naga maqnaay oo xilligaas naga aragtida duunay inaan la dardaarano. waxaan rabnaa cid kasta oo na support garaysay ama naga mid ahayd inaan la dardaarano, laakiin maxaan ku dardaarmeynaa? waxaan ku dardaarmeynaa daacadnimo iyo kalsooni iyo isku duubni. hadafkeena ma ahan kala ququbnaan iyo ma aragtay kala sheekeen. waxyaabihii maalmahan intuu halgan ka socday aan la aamusnaa wax kamid inaan idinla wadaagan waa rabaa. faa'iido badan inaan idinla wadaago waa rabaa. waxyaabo badan oo nagu soo socdo inaan ka gaashaamano waa rabaa. odayaasha na matala annaga oo maanta magaalada Muqdisho joogana waxaan rabaa fariin adag inaan u diro oo aan gaarsiiyo maxaa la yiraahdaa ii sheeg hadafkeena waxa uu yahay dadkeena qurba joogta oo social media ka soo dagaalamay oo xaquuqda weligood raadin jiray. maanta markay imaatay sida la yeelayo ama sida aan annaga rabno maxaa la yiraahdaa inaan u bandhigno. annaga markasta waxaan nahay dad fikir soo jeediyaal ah, fikir abuurayaal ah, laakiin fulintiisa iyo hirgelintiisa dad aan annaga ahayna iskale. sababtana waa idiin sheega annaga dhalinyaraan nahay, fikiraan la imaanay. fikirkaasoo ahaa in xaquuq ay naga maqan tahay maantana adduunyada media ay tahay oo maaragtay digital aan haysano adduunyada guri kasto aan gaarsiin karno hadafka aan leenahay iyo fariinteeda oo ahayd inaan yeelano maamul annaga na matalo. beel Soomaaliyeed xumaan uma qabin, qof Soomaaliyeed oo walaal ma xumeynin, nidaam Soomaaliyeed iyo dowladnimo Soomaaliyeed ma diidaneen, laakiin waxa aan diidaneen annagoo muwaadiniin ah dowladnimada jecel dastuurkii dalkeena lagu dhaqaayay inaan agoon ka noqono. macnaha agoon aan ka noqono ama aabba la'aan aan ka noqono saa rabteed u qaado because aabbaha markaa dhaxal ku lahaynin macnaheeda waxa waaye dhiiggiisa ma ahid oo unclear person tahay oo aan caddeyn inuu qofkan ku dhalay. aniga ma rabi inaan hadalka ku fogaado muhiimadeedan u soo deganaa.
maalinta arrimaha gobolka banaadir ka hadlayna dad badan oo walaal hadda magacyadooda meeshan igaaga muuqdaan inaan waalanahay u haysteen ani kaligey ma ahane qof kasta oo banaadir ka hadlu ahaa qof markuu aniga yiraahdo wax xun waaye wax kasta isku duubnida iyo wada jirkay wax ku yihiin annaga markaan dhahayan waxaan ula jeedaa in qof kasta oo maalin u istaagay inuu cod u noqdo dadkaas gobolka banaadir degan baarlamaanka Soomaaliyeed wixii ka dhacay waa aragnay dad badan oo ma aragtay xilkooda ku waayay inay jiraan maxaa la yiraahdaa ii sheeg waa aragnay oo ma aragtay madaxweynihii Hirshabelle uu kamid yahay gudoomiyihii baarlamaanka Jawaari uu kamid yahay dad badan naftooda u waayay maanta gobolka banaadir qabri ugu jiro wax dheel ku imaada malahan xurnimada lagu sheegay iyo SOL soo dagaalantay tan anaga aan gobolka banaadir u soo galnay oo aan u dagaalano way intaas oo kale intoo la way facility iyo ma aragtay awoodda ilaaha awood iskala amaanta haysano 13 dhalinyaro oo ma aragtay maxaa la yiraahdaa ii sheeg xurnimada dhalinyaro la dhahay ma haysanin laakiin maanta anaga waxaan nahay SOL cusub ee gobolka banaadir anaga markaan dhahayna waxa waaye qof kasta oo qayb ka ahaa arrimaha gobolka banaadir oo maalin u soo hadlay oo juhdigiisa galiyay waxaan rabaa wax yar faahfaahin in aad ka siiyo caqabadihii aan soo maray dad badan oo walaal oo ehel inta luuqi ii soo galeen waxay dhihi jireen waa waalan tahay wax gobol banaadir la yiraahdo ma leh iska dhaaf waligay ma rajo dhigin laakiin awood badan ma lahayn waxaan xasuustaa habeen anigoo saac amal life isku diyaarinayo in ma aragtay la igu xiray walaashay Aamino Muuse waa wada hadalnay Aamino waxaan ka hadalnay qadiyada waxay tahay meesha ay marayso iyo meesha la socdo Aamino ma dhihin aniga wariye professional ahay qof Soomaaliyeed ahay BBC dan ka soo shaqeeyay telefishinno badan oo caan ah ka shaqeeyay ma rabi maanta gobol banaadir iyo gadaal inaan u soo noqdo laakiin Aamino xanaad leefku horay goormay soo galaysaa haddaan soo galayaan dhahay waa xasuustaa ina isku qurxiyo uma baahniyay tir oo make up amarsad ilaha qurxi dhaliyay leefka markaa gashid soo qabo barnaamijkii ugu horeeyay ani iyo Aamino meeshaasaan ka bilownay maalintaas wixii ka dambeeyay awoodda ilaaha awood iska leh oo powerka social media aan ku leenahay iyo codka banaadir meel gaaridiisa waxay noqotay wax kordho oo caalamka oo dhan ogaado oo aan qarsaneen hal video hal leef markaan soo galno waxay noqotay qabiilo xataa inay soo duulaan oo ma aragtay iska dhax arkaan ay ayaga u maleeyaan hadaf iyo wax ayaga loogu dan leeyahay laakiin muhiimadeena anaga taas way ka weyneed muhiimadeena in maamul iyo matalaad iyo ma aragtay maqaam dadkaas leeyihiin aan helno oo ummadda kaleentoola aan la midoono marka aan dhahay waxa waay kaliya marka meel lagu celiyo ilmaha kaleentoolana hooyada ama eedada qofka familka mas'uulka ka raashin siiso waxa dareemaysaa lonely kali inaad tahay waxa isbadaysaa marka jiritaankaaga inaad muujisid anaga waxa jiritaankeenna inaad muujino dadka inaan u sheegno xaquuq aan leenahay inay tahay walaalo badan jiraan oo waqtigooda soo galiyay oo ma aragtay 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 aan dhihi karin gabdho badan jiraan oo u soo baraan bureen oo waqtigooda u bixiyeen wiilal badan jiraan iyo abwaaniin badan oo heeso iyo maxaa la yiraahdaa gabayo iyo shirb iyo goobaabo u qaaday halganka guusha markay imaato annagoo dhana iska wada leh kulligeen laakiin ceeb markay imaato qofka markaas hadlay Cabdicasiis Maxamuud Kulmiye ha noqdo ama walaalaha kale midkood ha noqdo ayay ku koobnaanaysaa intaasay tuxeey hordhici barnaamijka iyo caqabadihii iyo waxyaabihii aan la soo kulannay waa ka soo gudubnay heer annaga waxaan gaarnay nafteena dil loogu hanjabo sharafkeena iyo ehelkeena lagu xadgudbo waxaasoo dhan uma joojinin maanta hiigsanay laakiin maanta ma aha meesha u socday waa biri iyo mustaqbalka meeshaan u socdo waana idin sheega meeshaan u socda haduu ilaa yiraahdo waa idin mahad celina qof kasta oo kelmad ka soo qortay live-kii halganka gobolka banaadir loogu jiray ama qof kasto sheer gareysay ama qof kasto oo beesaani ahayd oo waxaan niyada ka jecleed laakiin yaa isdhehaysay yaan lagu dhihin qabiilista tahay asagana waa u mahad celinaya laakiin maanta matalaad markaa yeelatid xaquuqa leedahay macnaheeda waxa waaye aqalka sare hadii gobolka banaadir xubno gobolka banaadir matalo aan ku leenahay maamul goboleedka inaan ku dhawaaqnaa noo dhiman oo kaliya maanta Washington aqalka sare laguma matala laakiin banaadir waa lagu matala waxa rabaa odayaasha in Allah hadlo fidna idinku soo socoto meel kale toolana ma ka iimaanayso
annaga dhexdeena ka imaanaysaa. waxaan kula dardaarmaa marka gogol nabadeed sameeya oo gobolka Banaadir dhiga. waca beel kasta oo gobolka Banaadir degan ciday doontaa u dhalatay, talada ka qayb geliya, go'aankiina iyo sida aad rabtaan inaad wax u qaybsataan u sheega, wax isla meel dhiga. ha noqonina dad kaligood ordo oo ma aragtay maxaa la yiraahdaa ii sheeg fadhiidka cagaha helay. ha noqonina. fariintaasiti waxaan la hadlayaa mudulood. tira ahaan mudulood meesha waa u badnaaha, laakiin micnaheeda ma ahan wuxuu raba inuu kaligiis iska sameynayo. waxaan kula dardaarmaa odayaasha dhaqanka, waxaan ayagoo socdaanay idin imaadeen, laakiin dadaa waqti iyo dhiig geliyey. dadaa waqti iyo dhiig geliyey, idinka fadhigiina idinkuugu imaadeen. bunka markaa cunaysaan oo dowladda lacagta ay idin siinayso oo dowladda hala taageera aad dhehaysaan, annagana har iyo habeenaan dagaal ku jirnaa. miiskaasaan fadhinaa 3 saacadood iyo 4 saacadood aan enerjigeena dhuminaynaa, aan qaylinaynaa, qof waa la noola haystaa. micnaheeda guul inay imaatay ahayd waxa aan raadinayna xil iyo maaragtay lacag iyo maaragtay meesha loo socdo. qof ku fikiraya male. qof kasta wuxuu ku fikirayay waxaan in ideolojiya ay tahay oo laga miro dhaliyo. maanta waa laga miro dhaliyay, fadhigiina idinkuugu imaatay. dadaa naftooda u huray. ha ku ciyaarina marka wixii si fudud idinkuugu imaaday oo fadhigiina idinkuugu imaaday ha naga burburinina. galmudug maamulka la yiraahdo iska daba jiitan iyo iska daba wareeg badan uu galiyay. sababta ma kasee aas-aaskaa ka xumaaday. markii la dhisaayay midnimo laguma dhisin. wax kasta oo aan midnimo lagu dhisinne meel xunay tagayaan iyo eber. waa ogahay inaan hadla xaq uma lihi waxyaabaha qaarkood ka hadlo, laakiin waxaa xaq u leeyahay waxa aan beritoola huraynin oo aan u dagaalamayo oo aan u dhimanayo maanta inaan kasii digo. odayaasha dhaqanka beesha mudulood 13 haddii la rabo mudulood hala wada siiyo, ha qaato, ayaga ha wada qaataano. laakiin markay qaadanayaan waa in hawihi oo raalli ah, reer xamar iyo dad qof walba oo gobolkaas Banaadir degan oo raalli ah inay qaataan waxa ay qaadanayaan. haddii taas ay dhici weyso dhibaato badanaa imaanayso. waa la idinkala qaaqaada. waxaa la isku dayaa in la isku keendiro, laakiin waxaa la rabaa caqli iyo xigmad inaa uga gudubtaan. waxbuudan iyo rati abgaal iyo wacaysla odayaashooda ha fariistaano, ha isweydiiyaano meesha loo socdo, ayaga ha kusoo heshiiyaano sida wax loo qaybsanayo, muddada gogol ha u dhigaano, ha ducaystaano. fursad fiicanaa jirto maadaama shirki qowmiyadda mudulood la filayo bishan gudaheeda inuu dhaco. ana waxaan qabaa ajendaha shirka in laga dhigo arrintan ku saabsan maxaa la yirahdaa gobolka Banaadir. matalaada haddaa heshase maqaamka jidkay u maraysaa. dad badanaa ma aragtay maxaa la yirahdaa ii sheeg waxay isku wareerinayaan neefki oo nafta ku jirta oo nool xubnihiisa inay kala qaybiyaan. lama gaarin. wax badanaa ka sokeeyo. wax qaybsi lama gaarin. waxaan annagaa iska leh. ani waxaan ku qanacsanahay qof kasta oo dadkaa matali karo, qofkuu raba ha ahaado, inuu nagu matalo meesha loo socdo. muhiimadaana intaas ah. dadkoo dhan kuraasta la heli doono ma wada deeqayso, laakiin waxaa la rabaa qof kasta qanaaca inuu haysto. annaga waa soo halgannay, laakiin yaan usoo halgannay. dadka gudaha joogaan usoo halgannay oo ma aragtay maxaa la yirahdaa ii sheeg aan rabnay maanta inaan soo gaarsiino heerkan la gaarsiisan yahay. aan tusino midnimada iyo isku duubnida iyo walaaltinimada waxay tahay. waxaan umaleynaa
qofa nagu soo biiray. Salaamu calaykum. وعليكم السلام عبد العزيز وكم هاد عليها أذكي إيه داوياش هذا waxaa maanta hambalyo ah iyo farxad in gobolka banaadir loo ogolaado 13 inay ku yeeshtaan aqalka sare reer muqdisho dhan waa u mahad celihaa gaar ahaan adiga waa ku mahad celihaa juhdigaas soo geliyay iyo waqtigaas badan intay ka xumeednahay hadda tirakoobkooda waa iska yaraay laakiin calooshooda un bayna tuseen wax dhibaato oo hadda ay nagu sameeyeen oo guuriyo ma jirtaan leeyahay waa gartay waxaa kaleetoo rabaa fariinina inta uga dara ninka la yidhaha xildhibaan idris shalay af soomaali caadi uu ku hadlaya berigana af raxaweyn uu ku hadlaya marka ani waxaan dhihi lahay afkii shalay nagula hadal aan ku fahamnayo macnaha waxaa ula jeedaa xildhibaan idris oo baydhabo ka soo hadlay islamarkaana sheegay dadka gobolka banaadir degan inay sadbursi wadaan islamarkaana ay istaahilin in loo meel mariyo ama la siiyo maxaa la yidhahdaa xubnaha ay doonayaan islamarkaana xubnaha dowladda ugu jiro beelaha digil iyo milifle ka codsaday in cod loo diido. taas ma ula jeedaa? taasaa ula jeedaa marka fariinta diidmada markuu diraayay af soomaali caadi uu ku hadlayay maanta markuu guul daraystay oo isla ayagii ay gacanta taageen inay u ogolaadaan gobolka haddana wuxuu kusoo hadlay af maymay marka waxaan jeclaa lahay geesinimada hal mar inuu muujiyo oo waa diida sida ninka miiska inta ku istaagay waa diida yiri caawna geesinimo teefeyga la soo fariistay. Okay, marka Jawaahir horta waa mahadsan tahay dad badana arintaas falaaqeeyay xildhibaanka marka uu hadlaayo oo baydhabo ka hadlaayo oo af maymay ku hadlaayo dadka digil iyo milifle wuxuu rabiyay inuu mar labaad baarlamaanka ugu soo noqdo campaign ka aheeda la yiri campaign iyo waxay rabtaa ka ahaato laakiin inuu oo Soomaalida marka uu la dhex joogana oo nugula hadlo af jalaafe ah marka uu dadkiisa la hadlaayeen oo af gooniyo kula hadlo waa taas waa diidnay gobolka banaadirna waxaan ka codsahaa shacabka gobolka banaadir sheeka ma dhawo hadday ko tahay 13 laakiin xisaabta hadday dhiman tahay wili is dhiganine dhagaa ha furtaano nin matali karana ha keensadaan hadday shacabka banaadir oo xaqooda hadhow loola xisaabtamo hadba si ay ugu soo dhiciyaan ay ku xiran tahay aad iyo aad waa fikir aad u wanaagsan tan maanta meesha u joognana taas waaye waxaan rajeynaa dadkeena caqliga saaxiibka u ah ama maxaa la yiraahdaa ishaq ay ka go'an tahay inay maxaa la yiraahdaa hawshan ka mir dhaliyaan inay wacyigelinta iyo dadaalka ay meeshooda ka wadi doonaan. aad u mahadsantahay. Okay, waa mahadsan tahay walaashay Jawaahir adigana aadan kaaga mahad celinaa waqtiga iyo juhdiga aad gelisay arrimaha gobolka banaadir dhiirigelintaada dhanka suugaanta iyo maxaa la yiraahdaa ishaq runtii gabdhaha waxaa ka mid ahayd marnaba aan quusanin mana idin iloobi doona hadduu ilaa yiraahdo waa mahadsan tahay. Thank you abo sidoo kale waajib waa hay mac salaam. marka way mahadsan tahay walaashay waxaan rabaa booskeyga inaan ku laabto wax yarna inaan ka baxaan rabaa kadib odayaasha marka dhalinyarada jaamacadaha ka baxay degan gobolka banaadir aqoon-yahaniinta hala tashadaano hala fariistaano fursad hala siiyo dhalinyarada ma u maleynayo mar kaleentoole maxaa la yiraahdaa ii sheeg oday inuu nagu matali doono maxaa la yiraahdaa oday inuu nagu matali doono mar dambe maxaa la yiraahdaa aqal sare ama baarlamaan midba insha Allah ilaahayna waxaan ka baryaa dadkeena inay fahmaan meesha aan u socono iyo ma aragtay meesha aan hiigsanayno talada iyo ma aragtay istalasiinta wax aad u weyn waaye laakiin waxay ku fiican tahay inaan ogaano dadka aan nahay iyo meesha aan u socono waxaan hiigsanayno iyo hadafka aan leenahay intaas markaa ogaano waxyaabo badana suurtagal noo noqonayo Aamino Muuse weheliya habeen wanaagsan salaamu calaykum. habeen wanaagsan cabdicasiis salaamu calaykum. وعليكم السلام ورحمة الله. waa ka xumahay horta saan si ka fiicanaan rabay inaan si wada jiro u soo galno laakiin waqtiga iyo daruufaha saamixi waayay 26 Juun waxaan u maleynaa maalin weyn oo maalin xurriyadeed inay tahay banaadir maanta
maalin weyn u tahay aamin ahaan maxaa dareemaysaa horta aniga to iska yara deganahay sababtu waxay tahay mar walba waan ogaa waxaad moodaa in maxay ahayd ilaahay markii horeba qalbiga ii qaboojiyo mar walba waan ogaa wixii loo halgama in la helayo waxaan rabaa horta inaan adiga ku hambaliyeeyo una hambaliyeeyo qof kasta oo maalin xataa na garab istaagtay aad iyo aad qof kasta oo maalin xataa iyada iskeed iyo annaga na garab istaagan hadday doonto iyada iskeed dadkan dulman xaqooda u raadisay hadda casiisa wixii annaga nagu dhacay oo annaga nalagu yeeray halgankan daraadiis muhiim ma aha aad iyo aad sababtu waxay tahay dhiirigelinaan ka qaadna iyo adadayg maahee waxba noomay dhimin si fiican hase yeeshee wax loo baahan yahay ayaa waxa ah horta dadka gobol kale ee loo doodayo inay fahmaan xuquuqdooda inay gartaan waxaan xasuustaa 2018 marka hal sano dowladda hadda joogta ay joogtay fikirka marka aan soo hadalno aniga adigu siduu ahaa hadda waa ka duwanahay aad iyo aad si fiican waxaan aqaanaa aniga 100 mudullood ah oo aniga marka abtirsiyo la yidhaa isku abtirsanayno iskaba daaba dadka kale gobolka nala degan iska daa oo sidaas adiga ku dhahayaan wad waalan tahay aniga igulama aanay dhiiro laakiin aniga waxyaabaha ugu badan oo kuwa kale ee raba inay afka ay qabtaanba ay igu guulguuli jireen waxaa ka mida waxaa tahay qof caana waxaa tahay qof soomaalida ka dhex muuqda waxaa tahay qof wariye ee u hadlay horta waxaa u fasiri jiray si yara kaftana inaanay kelmadda isqabanaynin wariyaa tahay iyo haddana maxaad u hadlay aad iyo aad maxaa yeelay wariye isagaaba wariye eedawaaba inuu hadlaba warkaaba alla irsaaqada ka geliya aad iyo aad horta waa meel talabaad waxaa waaye waxaan u fasiri jiray haddana u fasiraya caannimadu ma aha iyo shahaadooyinka jaamacadaha digriga aniga psychology degree haystaa ma haysto saxaafad degree wax ka fiican haysta oo experience ah soo marka labadaas la isku daro oo takhasuska ku yeeshtay ma aha ilaahay uguma talagelin warqadahaan inaan inta meel la fadhiisto sidii sanab suuro ama aan jajabsado sidii badar cuno laakiin warqadahaan waxaa waaye in aan aniga wax dadka ugu qabto saxaafadda waxaa ka mida marka qayb la yidhaahdo xuquuqda aadanaha oo ah qofka suxufiga ah waxa waaye xuquuq raadiya marka la baranaayana saasaaba lagu dhigayaaba sharciyadeeda waxaa waaye wax alle iyo wixii la qarinaaya inaad banaanka usoo saarto waxa la qarinaya marka maxaa waaye qof yaree la rabo in luuq lala galo oo la dulmo oo xuquuqdiisa la duudsiiyo waa wax la qarinaayo aad iyo aad weligii fahmin aniga marka waaba masti waajib isaaran waaye marka loo fiiriyo wixii aan ku takhasusay iyo wixii aan bartay kaba soo tagba aabbahay muuse weeliye cadow oo nin mutulooda ahaa oo nin baray ahaa ilaan cirka kama soo dhicin anigu yahay oo dad baan ka dhashee maba ayna ixdo markuu wax ibaraaye wuxuu iigu dadaalaya inaan noqdo gabar qof kasta oo dulman hadhow u hadasho aad iyo aad dhagaxaa la dulmay waa la dhiibay waa u hadlay soomaali igama sokeeya aniga ina adeer gaara iima ah intaasoo qof oo kale la dulmay meela lagu xiray waa u hadlay xamar cabdullaahi xarawa turki lagu xiray ayadoo weliba aan deganayn oo maskaxdeedu aanay deganayn waa u hadlay boqorka bartamaha ayaa lagu xiray waa u hadlay war intaasoo qof hadda kuma wada xasuusan karee qoraalkoodana ma hor yaalle ayaanu hadlahay maxaa ku jaban marka haddaa u hadla dadkii aniga aan ka soo jeedo oon u dhashay oo dulman haddaa u hadlo why they are different from the others maxay kaga duwan yihiin dadkii kale oo aan u hadlahay marka shalay waa ii sacabatumaysa markaa u hadlaaya nin in adeerka ah markaa u hadlaaya nin abkowgaa ah markaa u hadlaaya nin eedadaaya habarirtaa dhashay haddaa ay weerarto macnaheeda waxaa waaye aniga qarandumismihii aniga aad iyo aad noloshuna waxay leedahay qofku waa inuu noloshiisa qawaaniin ku dhisan tahay nolosha qofka inaa iska noolaato badan iska cunto musqusha kartood soo saxarotood soo noqotood badan iska cunto ma aha nolosha
nolosha waxa waaye inaad principles leedahay qawaaniin inaad leedahay sida gaarigu qawaaniin lagu wada u leeyahay qofka noloshiisa laga rabaa inuu qawaaniin lagu wada u leeyahay qawaaniinta marka adiga noloshayda aan ku wadaaya waxa qof kasta oo dulman oo xuquuqdiisu maqan tahay inaa isgarabtaado saa marka taas waa ibajin weyday maanta marka meesha la joogo oo 27 June waa maanta waa maalinta walaalaha oo Jabuuti xorriyadda qaateen iyo waxa isku soo aada arrintan inkastoo aniga aanan rabin dadka inaan niyad jabiyo oo aan ka jeclaa in maqaamku horeeyo matalaada iyo maqaamka because sharci ahaan matalaada iyo maqaamka inuu maqaamka horeeyo waa haddana waxaa rabaa inaan hambaliyeeyo kulli because waxa wari ninkii ida ma qabin nina ida qabin waxaa la yiri hebelow ha geel iyo dad waaweyn iyo ida iyo eri iyo lo iyo xa u yeelawaysaa dhaha wuxuu yiri haleela geel hawaday ma gaartee hala riyaad iyo dameer heleena hawd aniga geelba ma hawaysa karee wuxuu yiri xoogaa dhannaho eri iyo halkoo dameer le ma heli karaa hawdha intaasaa iga badan xaaladda gobolka banaadir saasoo kale ahayd haleela geel hawaday ma gaartee hala riyaad iyo dameer heleena marka 13 sanitar saa adiga sheegto waaye waan kugu ayidayaa waxaan kula talinayaa dadka hadhow ee go-aanku ka go'o in aan la xaq darin dadka kale ee gobolka la degan maxaa yeelay maalin dowladda waa nigi sheegay waxa jirta mahmaha ingiriis oo dhahaya gabood lagu gabood faluhu wuxuu marka dambe isku bedelaa gabood fale aad iyo aad marka la dulmiyo oo dulmi badan oo ku daalo oo dulmiga la qabsado halka mar oo fursad helo asaa wax dulmiya looma baahna marka saasoo kale inay dhacdo ma raba aniga hadday dhacdana waxay noqonaysaa nasiib darro iyo ayaan darro aad iyo aad carro iyo mugdi ugu shubaysa halgankii aan soo galnay marka in si saraaxad loo qaybsado si cadaalad leh in loo qaybsado qanaacaad inay jiraan iyadoo laysu ducaynayo oo faatixada laysu maraayo oo alla la isu baryaayo in kuraastaas dadka 13 saas loogu qaybiyo aad iyo aad aan u mahadsantahay kulligiina waxa aad leeyahay hambalyo cidii maalin dooday cidii maalin halgantay cidii baraambur soo tirisa cidii hees soo tirisa cidii xataa annaga oo live ku jirna oo halgamayna hal maalin one day like noo saartay waxaan leeyahay congratulations adigana waa mahadsantahay okay aba aamino aad u mahadsantahay insha Allah barnaamijyada inta kuma ekaan doonaan halganka duu koo yahay matalaadana way imaanaysaa maxaa yeelay maxaa la yiraahdaa ii sheeg hadaa matalaad yeelatay maqaamka ina ku dhawaaqida ka dhiman kaasna processka iyo nidaamka loo marayo insha Allah aan u mareynaa waana mahadsantahay waqtiga ay qaaliga haya walaal adaa mudan thank you banaadir waxaan rabaa walaalaha maasha Allah tabaarakallah waa idinkaaga mahad celinaa waqtigiina qaaliga ah iyo sida aad juhdi u gelinaysaan maxaa la yiraahdaa ina na garab istaagtaan ina niyadda noo dhistaan macnaheeda waxay cadeynaysaa taas wax aan wada leenahay oo dad gaara aysan lahayn inay meeshan yaaliin waxaan rajeynaa okay waxaan rajeynaa maanta laga bilaabo inuu halganka yahay mid annagoo dhan noo yaalo cid gaara aan lagu daynin aan loo qaadanin cid gaara in shaqadan laga sugaayo shaqadan shaqadiina waaye shaqadeena waaye shaqo aan wada leenahay waaye marka aan saas idin dhahay annaga iskalene annaga waaye qofka aaminsan inuu xaquuq gobolkaas ku leeyahay dadkiisa degan yihiin dhibaatada ka danqanayso waalidkiis gobolkay rabaan ka soo jeedaan annagaan u kasaa dad badan aad ii dhibsaday oo ma aragtay aad uga xanaaqay cidda banaadir iska leh maxaa la yiraahdaa wiilkooda salaamu calaykum qofaan ugu soo biiray soo dhawow abaay عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عبد العزيز وسلام يا ذي شعبية بكثير سميسو همبلي الله هاي قبل بنادر أو كل شيء وحدود بيد كدوجن تا ولي بقى بولا إلا كل شيء مكرت aad iyo aad magacaaga adoo mahadsan horta dadka ha ku maqlaan فرحية maasha Allah farax soo dhawow جدا هذه سعودية عربية صدق كلام جميل maasha Allah tabaarakallah أنا أذكر أحبك جدا برادر وسلام يا family and friends أنت مرناي maasha Allah tabaarakallah waa sharaf ay tahay maasha Allah
maanta waa hambalyeynaya marka caadfad iyo waxaas yani sometimes in laga qaato waa midka break aad iyo aad aad iyo aad odo dhaqameeda ah maanta ma ii jeedidoo macaawiis iyo inaan ku xadgudbi jirin brother you are respect people ka respectaa sii jirtay idoo wacaynayo kommentadaada aan akhrinayo oo waxa walbo saasaan kaa rabaa يعني قف أو وناك أو سماي وهلا لين أخلاق لها تاي because سعود عربي كويناتي قف سعود عربي كي ما أظن بونديرا كهري سعودي جنو yes بونديرا كهري سماهنا سعودي لا لكن waxaan ku wada dagaaladii kadib Sacuudiga si kortay aad ما شاء الله تبارك الله وما تسنتا فرحي أبو سلام يا هم بلي الله هاي قفل منا وناك تشو رادينا يعني وسود ويننا إن عاطفة يا قبيل منهن وقدرنا حدونتنا دوجن ودي ميل كلمات بعدين ما تجين إن وحها Somali from السعودية العربية and then UK so مثلا ما شاء الله فرح قبيل ما كان دقيقة وحوا جربين وهاي يعني الحمر everybody Somali دارود إبلو everything الميجا تقريبا يقانا قف استهبر ريدها وجيت كمرش ما يقانا وحيهين صوت أنا سهل يشوفني مك لا يوحنا ويدينا إن قلبي جينا وصلين كديو آمين آمين أوكي وما هتسنتها فرحي إن شاء الله بارك الله فيك إن هذه وما هتسنتها ولا شيء إن شاء الله إلهي وحنا كبريا إن كوي وناك lagu xasuusto oo naga dhigo oo ma aragtay xumaan aan la ku tilmaamin adduunyada waxa ugu xun adoo dhimatay oo dunidan joogin in xumaan laga sheego aad jawaabi karin marka alxamdulillah sharafay noo tahay in ma aragtay akhlaaqdeena iyo sharafkeena iyo koriinshaheena wax laga sheegeen oo ummadda si positive ay noo aragto runtii bini aadan aan nahay macsuum ma nihin qalad uu naga dhaca laakiin muhiimadeedu waxa waaye meesha ay hiigsanaysid iyo meesha u socotid iyo hadafkaaga wuxuu yahay inaad ogaatid soo dhawow السلام عليكم السلام عليكم عبد العزيز وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته walaal magacaaga soo dhawow adoo mahadsan magacayga waa salaad haye salaad ordubay halka dheer soo gashay haye halkii la soo wada galo ilaahay ka dhigo kii lagu liibaano waa gartay laakiin waxaan u maleynayaa halkii inuu ku joogin aad iyo aad sababta ay tahay waxa odayaala kugu xariiro dad wax ka wayna kugu xariiro dadkaas wada jira in wax looga qabto fursaddan ay dhaqato fursaddii dhalinyarada wax baratay ما إن شاء الله هذا الصلاة مهمة وحواي إن دتك قبل كبنادر دجن إن أرنتاني تمحلي رذا كفريستان أي جوان كسر صاران لين يرذا جامعة ذا كبحي أو أقون تلا إن فرصة دلسيو أو ذياشنا فاتح هذا أمران برنامج كمركة أنفر وحيابها أن كبلوا بقى كان لين يرى نسكرته بقول كيبا إن محلي رذا تضبات إيشان مجتمعين ولين يرو إن أضيال صد odayaasha markaan ayaga faataxada loo maro ay meel fadhiistaan aad iyo aad odayaasha waxa waaye in waxyaabaha aan rabno waxay tahay dhaqankii siyaasadda in la kala saaro fadhigooda loogu adeego la ixtiraamo loo qidmeeyo mushaar iyo ma aragtay mudnaan gooni ee loo qoondeeyo laga warqabo meeshooda maxaa la yiraahdaa isha qaadumiin inta loo sameeyo baabuur qurux badan loo gado bil kasta dhaqaalo lagu siiyo boqor iyo ma aragtay ugaas iyo imaam sharafta iyo karaamada ay lahaan jireen iyo siday u noolaan jireen inay u noolaadaan siyaasadana maxaa la yiraahdaa siyaasiyiinta rugcadayaasha iyo dhalinyarada booska kala wareegayo loo daayo taas waa muhiimadeeda dhaqanka siyaasadda in la kala saaro wax qasab ah waadi kale intool ummadan horumar ma gaareyso kollayba aniga taasaan qabaa waa fahamtaan malayna waayo dhalinyarada fursadooda inay odayaasha meel ka fadhiistaan odayaasha faataxada loo maro dhalinyaradana garabka laga dharbaaxo qaybsiga iyo masalaadana wadajir lagu raadiyo qaybsigana kollayba
inaan dadkan la dulmin oo aan la aada u mahadsantaha adeer salaad fariinta aad diraysid waa tii aan dirayo kaleentoole waxyaabo badan aan iska leenahay marka idinkane niyad wanaag iyo ma aragtay faataxada ha iloobina inuu ilaahay inoo fududeeyo waan ku salaamaya insha allah khayr caafimaad adirti ala kulli hal okay ma sha Allah tabarakallah aad u mahadsan yahay adeer salaad waxaan dareemaa ma rabi inuu qof iga xumaado laakiin waxaan dareemaa walaalo badan oo xitaa ma aragtay WhatsApp kayga qaaska iga soo wacayo dad badan oo waxaa jiro ma aragtay aanan haysan WhatsApp kaas dad qaas ah haysto raali ahaada waqti badan ma gelin karno dada dhinaca kale inta iga haystaan salaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عبد العزيز محمد كلمية ما دعوتك soo dhawo dhammaan asxaabta kale khadka ku jirta waa kaa qaadnay waa mahadsan tahay mahad codka soo dhawow hore ugu soco baaba waa dhowaa bool maanta aad iyo aadan ugu faraxsannahay guur weyn oo taariikhi ah ay maanta shacabka Soomaaliyeed gaareen gaar ahaan shacabka reer Muqdisho oo in badan dhibaato ku jiray oo cabursanaay oo aan matalaadaysan inkastoo weli aan rajo ka qabno inaan maqaamkeena helno oo aan meesha aan maanta hadda aan gaarnay meel ka sii weyn oo maanta aan gaarnay in aan helno dad ayagu macnaha ayahooda ka tashan karo oo gobolkooda dadka codkooda ay kusoo magacaadeen ay u maamulayaan oo hadhow waxyaabaha ay dadkaas danahooda ka shaqeynayo waayo sababtoo ah markii uu gudoomiye gobol loo soo oo madaxweynaha kuu soo magacaabo wuxuu ka shaqeynaya inta badan 90% ra'yiga iyo fikirka madaxtooyada ku shaqeynaa wuxuuna qancinaa dadkii soo magacaabo si uu booskiisa u ilaashado marka annaga muhiimadeena iyo hadafka ugu weyn waa in aan helnaa maqaam inaan helnaa oo golo deegaan uu yeeshto gobolka banaadir oo asaga oo isdoorto oo asagu si madax banaan isku doorto oo gudoomiyaha degmada waa taqaanaa kulley Bonder iskala imaanay degmada Bonder oo kaleete markii gudoomiye degmo loo magacaabayo waa inuu ahaadaa nin dhalinyaro ah oo degmada Bonder ku dhashtay wax ku soo bartay cid uu doona ha aado annaga uma eegayna qabiilkiisa iyo jufada ku soo jeeda looma eega laakiin waxa loo ogaa inuu yahay nin ku dhashay degmada ku dhashay oo degmada wax ka yaqaano oo degmada wanaageeda uu ku hayo wanaaga degmada jecel xumaanta degmada iyo dhibaatada degmadana ay dhibayso saas oo kale waxaan rabnaa gudoomiyaha gobolka inuu noqdo nin golo deegaan soo doortaan oo golaha deegaanka oo soo doorta oo deegaankiisa u naxaayo oo dadkii soo doortay wax u qabanayo inuu noqdo marka waxaan 100% u hambaliyanayaa xildhibaanada Soomaaliyeed ee maanta sida aqlabiyadda leh ay ku ansixiyay ugu horeeya Cabdiqaadir Carabow iyo xildhibaano badan oo xildhibaan Mustafa Bixlow iyo ay kamid yihiin iyo Khadiija Maxamed Deeri iyo Cabdiqaadir Casable dad badan oo maanta ay mahad salaad dad badan oo maanta dareenkooda si weyn u muujiyay oo taariikhda baaldahab ka geli doono oo maanta muujiyay dareenkooda si wanaagsan u muujiyay dhammaan xildhibaanadii kale ee gobolada kale ka yimid maanta taageeray in walaalahooda ay matalaad ku helaan aqalka sare runtii waxa waaye wax aad iyo aad loogu farxo waa waxaan in badan sugayna waa wax in badan naga maqnaay marka meel walba joogaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka reer Muqdisho ee gobolka Banaadir waxaan leeyahay hambaliyo ku jiro aad u mahadsan tahay waa kaaga mahad celinaa dhammaan walaalaha nala socdo meel kastoo aad joogtaan waxaan idin leeyahay waa mahadsantihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay la in shakartum la aziidannakum fiiri nimcada ilaahay bal fiiri la in shakartum la aziidannakum war haddaad igu shukrisaan waa idiin kordhinayaa oo waa idiin siyaadinayaa wala in kafartum ina cadaabii la shadiidun haddaad igu kufrisaan oo awaamirtayda iyo waxyaabaha aa idin faray oo waajibaadka oo aa idin saara aad diidaanne ina cadaabii la shadiidun cadaabkayga waa mid adag shadiid ah oo macnaha kulul marka in waxaa haysato lagu kordhiyo iyo in lagu cadaabayaa dooranay haddii la yiraahdo qof kasta oo bini aadan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala qalqa wuxuu dooran lahaa waxa uu haysta in loo siyaadiyo waxa waaye maalka ilaahay kuu siyaadina awlaada ilaahay kuu siyaadina maxaa la yiraahdaa caafimaadka ilaahay kuu siyaadina wixii adduunyada oo aad rabtid hamigeeda ilaahay kuu siyaadina sababta lagu siyaadinayna maxaa waaye waxaa qiratay oo aa cadaysay
adoon inaad tahay because alxamdulilah aad tiri markaa dhib ku jirtay iyo markaa dheefta haysataba ilaahow adaa iska mahad leh. taasaa waxaa ula jeedaa horta alxamdulilah ilaahaygiina garansiiyey oo na ka siiyey inaan inta meeshaan soo fadhiisano aan u sheegna dadkeena inay xaquuq ka maqan tahay oo cod dheer aan ku raadinay. horta ilaaha mahaddaas iska leh. waxaa mahad iska leh walaalihii waqtigood noo huray. qof kaligiis wax ma qaban karo. qofki kaligeeya wax qaban karaa ku yiraahdo hadduu adduunyada ugu taajirsan yahay xataa kadaab dheh. haddaa lagu garab istaagin, waqti lagu gelinin, waxa aad duubtay la dhagaysanin, la sheergaraynin, la laagaraynin, way dhib badnaanaysaa fariintaada inay meel gaarto. gabdhaha meeshaan ku jiro waxaa laga yaabaa gabdho badan waxaa la yirahdaa suugadii iyo dallaci inay ka gubteen ayagoo banaadir ku jiraan. qaaraa jaranjarayaal ka soo dhaceen taleefanka ayagoo ku mashquulsan. يعني ma tilmaami kari in dadkeena dhibaatada ka soo gaarta halgan kaaneeti. yes cabdicaash maxamuud kulmiye meeshaanuu taagan yahay wejigiisa la arkay, laakiin dad badana jiraan oo maanta iga maqan aanan ii muuqan oo haddii tankiyo aan dhihi lahaa xataa meelaan u marsiiyo aysan jirin oo back up ii ahaa oo undercover ii ahaa. dowladda farmaajo maxaa la yirahdaa Fahad Yaasiin dowladda milkiile oo gadaal ka taagan. wallahi Fahad Yaasiin qaba oo gadaal iga taagnaa oo undercover ahaa oo back up ii ahaa oo dhan walba iga caawin jiray. fikir ha noqoto maxaa la yiraahdaa facility aan u baahanahay ha noqoto taageero dhan walba wuuna ka cudur daaray walaalkaas marnaba magaciisa inaan soo qaado, laakiin waxaa ka go'need banaadir inuu meel istaago oo wax noqdo. gabdho badanaa jiro oo maalin kasto dadka caytamaya xitaa meeshaanayti aan u ogolaan jirin inay ka caytamaan oo waqtigooda gelin jiray oo fiidiyoyaasha seergaraysan jiray oo sawiradeeda soo saaran jiray. wallahi inaanay iloobeyn. sababta aan u iloobeynin waxaa waaye dadka guusha keena ayaga waaye, aniga ma aha. because aniga haddaan dhiirigelinta dadkayga haysanin maalin haddaan wado maalin labaad ma wadi karin. laakiin suurtagal ma ahan 6 sano inuu qof meel iska fadhiyo iyo 8 sano uu xaquuq raadinayo isoo kaligiis qof kaligiis wax qaban kara ma jiro. xitaa dadka kaligood ma rabaan inay jiiftaan. u fiirso markuu ninka xoogaa soo weynaado wuxuu leeyahay wallaahi bilaahi nolosha cariiri waa iskaabulnimada ma anfacayso. qof la jiifatuu rabyaa maxaa la yirahdaa makawadi. waxaa laga yaabaa dad inay dhan kaleento u fikiraan. la jiifashada ma ahan micnaha in ul isnabar dhawa haddii la isla jiifto. micnaha waxaa ulajeedkayga waxa waaye wehelka micnaha qof kaligiis inuu noolaan karin aan ka wadaa. micnaha waa la iskaabulnimada markuu ka baxayo wuxuu ka nasanaa dharki inuu dhaqo, wuxuu ka nasanaa raashinki inuu kariyo, wuxuu ka nasanaa nadaafada guriga, wuxuu ka nasanaa nadaafada jirkiisa. ninka adduunyada uu wasaqda badan xaasla hadduu noqdo micnaha على الأقل هدو أسيح حتى ربين إنه قبيستو حاسكا وحيد هي ساورنيه محالي هذا إيش بل شاور سوق هذا بمعناها بنوني انتو بلوبن. على الأقل أنت حتى فإذا marka qof kaligiis wax qaban kara ama noolaan kara male mal rabo farxadan inay nala tagto oo aan isdhigano oo aan dhaano meeshaan rabno waa gaarnay. laakiin yes dad badan oo waxaan xasuustaa aad igugu digtay laakiin kuma diganayo. maanta waxaan dhahaa waa mahadsantihiin, annaga maanta waa simanahay. shalay waxay ahayd sinaanta ninkii diido sarreyntiisa diid, laakiin maanta waxa waaye wada socodka ninkii diido gadaal socashadaada ka diid. oo aan ula jeedo maamulkan hadda maxaa la yiraahdaa ii sheeg xubnihiisi ugu horeeyay baarlamaanka ogolaaday oo lagu dhawaaqay jalaafo badana uu imaanayso. meel dheerna ha ka fiirinina, meel dheer ha ka raadinina, marada hoosteeda waaye, annaga lee waaye. laakiin ana waxaan qabaa siyaasiyiinta fursadaha soo heleen, xilalka soo qabteen, ku fashilmeen, deegaankan iyo dadkan wax u qaban waayeen inaan fursad la siinin. wiilasha 26 jirka 25 jirka oo jaamacadaha ka baxay oo magaalada Muqdisho joogo kuwaasaa mudan maanta in fursad la siiyo. dagaalkii 90kii maalintii maxaa la yiraahdaa ii sheeg Cali Mahdi 91kii madaxweynaha loo magacaabay. dagaalkan galnay ilaa maanta ku jirnaa, odayaalaan na geliyay. Cali Mahdi xilligiisii oo dowladnimadiisa la diiday dagaalkan galnayaan ku jirnaa reer adeero markaan nahay ilaa iyo maantane odayaan dagaal ugu jirnaa. sababtana waa idin sheegaa, sheekada Cali Mahdi waa soo dhamaatay. Sheekh Cali Dheeraan dagaal u galnay oo maxkamadihii waa soo dhamaatay.
muuse suudi oo madiine ka yimid aan dagaal u galnay oo waqooyigii muqdisho kusoo biiray waa soo dhammaatay dowladdii maxaa la yidhahdaa cali maxamed geedi aan dagaal u galnay oo cabdullaahi yuusuf uu waday waa soo dhammaatay maxaa la yidhahdaa iyo sheekh shariif aan dagaal u galnay waa soo dhammaatay xasan shiiqaa dagaal u galnay way soo dhammaatay intaasoo dhan odayaasha dhallinyarada yuusgaraynayeen ha ogolaadaana marka ayagoo la yuusgaraynaynin inay meel laga fadhiistaan oo dhallinyaradaasayt magaalada muqdisho wakhtiga adag wax ku baratay oo la xaqiray maanta inay dareemaan meel ay matalaad iyo maaragtay maamulkeeda madax u yihiin inay jirto ha ogaadaana jaanis hala siiya dadkaasayt kama hadlayo qurba joogta kama hadlaayo qurba joogta kama hadlaayo qurba joogta waxaan ka hadlaa hooyada yaayada gaddo wiilka boogga iyo qalanka ee u dhiibta qaraxa iyo xabadda dhexdooda jaamacadda uga baxay kaasaa gobolka banaadir inuu maamulo xaq u leh ma rabno inaan been isku sheegno nin maxaa la yidhahdaa ii sheeg lacag samaystay oo raba lacagta uu samaystay inuu meel ku gaaro jaanis uma hayno annaga oday jaanis uma hayno 26 sano wiil ka weyn baarlamaankaasaytii ama matalaadaasaytii gobolka banaadir inuu fursad ka helo jaanis uma hayno 40 jir wixii ka weyn ha gooyaano bunkooda ha dubtaano muxogooda ha ku darsadaano cambuuladooda ha cunaano meel ha fariistaano laakiin wiilasha yaryar oo maalin kasta la dilo oo maalin kasta la qarxiyo kuwaas waaye kuwa xaquuqda leh qurba joog kama hadlayo qurba joog haddii ay noqoto qurba joog in wax la siiyo qof qurba joog ah oo mudan xibin sharafeed ha laga siiyo maxaa waaye xibin sharafeed xibin xaqeed ma ahan because xaq uma lahan waxaa xaq u leh qof kasta oo maanta magaalada muqdisho ku sugan 13 xubnood may ku ekaanayaan kuma ekaanayaan gobolka banaadir wuxuu yeelanaa baarlamaan asiga u gooni ah wuxuu yeelanaa dad gobolka banaadir hoosheeda qabsada iyo maayar lasoo doorto u gooni ah cumar finish adeerkay waa salaama hasiilaa laabto maxaa la yidhahdaa ii sheeg go-iisa hasiilaa laabto haddee dadka gobolka banaadir soo dhawow cayuuni wardheere inoog salaama guusha idinkaa iskale idinkaa soo hoyseen waana ku mahadsantihiin dadka runtii dadaalka u galay arrintan oo ka qayb qaatayaa tahay oo maanta aan ka hadlayo oo attackiyu dhahay maadaama ay soo wacday cayuuni si wallaahi si niyad eh oo gaar ah waxaan ku dhahaa hambalyo gabar karti iyo sharaf iyo dhiig badanaa tahay rag badan oo gobolkaasaytii u dhashayaa ka karti badan tahay ilaahay ku karaameeyo adi iyo gabdho kulamidaa jiro weligay ma iloobi doono intaa noolahay wax kaleentoolana ma ahane dadkaa wax dheertihiin marka waa mahadsan tahay cayuuni aadaa kuula socdaa waqti adag adoo ku jirtid macnaha maxaa la yidhahdaa ii sheeg diyaar u ahayd dhaqaalahaaga iyo codkaaga iyo waqtigaaga inaad gelisid gobolkaas wax la iloobayana ma ahan insha allah waqtigaana ku xusi doono marka guuleyso walaashay waana mahadsan tahay waxaa dhihi kartid haddaa waxaa rabtid inaad dhahda haday jiraana fursadaada iskale lifeka ku jira haa waxaan leeyahay adeerada muduleed oo waaweyn oo meesha oo anaka mas-uulka naga ah sida imaamka guwaasada boqorinta dadka oo anaka mas-uulka naga ah oo adeeradeena oona dhalo dhib la-aantana dhalay waxaan leeyahay hambalyada noo soo hoyatay iyo dadka kale oo walaalahayna nala degan haloo gogol oo qiimana haloo fidiyo hala waco dadka hala qiimo geliyo dadka deriska xataa xaqay ku guleeyihin dadka deriska oo nala degan hala waco gogol sharaf leh haloo fidiyo oo walaalnimo ku dheehan tahay dadka ehelka oo qaraawada ah oo hawiyahane iyakana hala waco munaasibkay leeyihiin iyo masabkayna nagu leeyihiin naga mudan yihiin iyakaba juhdi kuwa noo geliyo oo juhdina geliyaa jiraan kuwaas iyaka naftigooda hala waco juhdiga ayna geliyeen waa inay iyakana xoogaha miro dhalkiisa ay helaan dadku waa la wada dhastay soomaali waa la laakiin waa la kala sokeeyaa kuwii diideenne shalay naadgiida waxaa arkaya maanta gacanta taagayso haddana iyada laftigeeda waxaa leeyahay hadee shalay qalad inta gasha qaladkeeda kasoo noqotay inta garaadsiyan leena wax barabaleen ma laha caloosheeda leena tusta gobonnimo iyo sharaf iyo dadnimo aad leedihiin dadka muqdisho joogo gobolkaas muqdisho waxaa waaye gobol aana ka leenaha waa ooyaashay nooga dhinteen mida aan dadka baryayna ma aha marka waxaan leeyahay horaha loo socdo gabarta dahab qabta fasgees ba allah ka dhigay
gogasha waa inaa lagu bixiyaa fasgays hadaa qabta xataa waa inaa bixisaa dhiigaaga iyo dheecaankaaga iyo nimadaada in la helo waayo gobol muuqato oo sharaf leh waa inay mudulo dadka u fidiyaan adeerada iyo adeer muusasooda carabow xildhibaan carabow waxaan leeyahay 100% waa mahadsan tahay waxaan kale u hambalyahayaa ma kala aqaanan inta badan dadka magacyadooda si ma kala aqaan laakiin inta meesha oo ka hadashay oo xildhibaan carabow ugu horeeya waxaan leeyahay hambalyo adeerka kale oo magaciisa ay maqane in saxba abuu magaciisa adeerka kale cabdiqaadir cusub baa ka hadlay cabdiqaadir cusub lahaa adeer cabdiqaadir cusubna waxaa leeyahay hambalyo guusha aan soo weystay waa mid ilmahaaga waxay dhalaan waxay sii dhali doonaan ay dhaxli doonaan kuwa kale oo ku daysado oo yacni laakiin iyakana cabsi yar ka gashay waxaan leeyahay idinkana xeedaha dhiiggiina iyo dadnimada inaad muujisiin waaye hadda farakama qodna faana walaa maqli jire taase waa inaad si sharaf leh oo cizi iyo karaamo ku dheehan tahay inaad yacni loo guusha waa gaarnay aan si fiican wada qiimo badan ana hadalkan waa ay tartara waa riba iyo arkin يعني فرحة إيجا بدت والله بالله. أوكي. وأنا كم هتسنت أبوي أدي أدا أم هتسنت الشرف بعزي الله ده هاي الله كرامي عمين الموسوعة لي قاطة ولا شيء معانا عليها قبل لماذا عمو جسي المها جاكو انتفاع إن شاء الله بإذن الله يكرم أنا كانوا كمان من قلبي كاسلام ولا شيء معانا وأنا ما هتسنت عبد العزيز. وما تنتين المحل هذا إيشك مال والبو مارت أجوكتان مهمة isku duubnida iyo iska warqabka waay wax kasta oo maxaa la yiraahdaa ii sheeg karti iyo dadnimo lagu doono ma la waayo waa la helaa marka waa mahadsantahay cayuuna adigana baay sidoo kale salaamu calaykum adiga asxaabtaada hadal badan micno ma sameynayo aada u mahadsantihiin meel walbo aad joogtaan wallaahi ilaahay dartiisa idin jeclaha wax kalena ma ahane weligii qof bini aadan oo ilaahay subxaana watacaala qalqay ma nicin wax aan u naco iyo sabab aan u nacane almuhim khayr badana idin rajeynaa ma rabi inaan sii wado intaan ka bacdi waa mahadsantihiin meel walbo aad joogtaan laakiin maanta والله العظيم مالين تاريخي او ددكين iyo deegaankeena ku weyn waay wax kale intoolana ma ahane waxa dib adoo qof ilaahay subxaanahu wa ta'ala qalqay oo jiro oo adduunyada dul saaran in lagu yiraahdo yani in xaquuq ma lihid matalaad ma lihid oo aa ogtahay dhibaatada dalkaaga uu ku jiro iyo burburka lagu jiro iyo ummadda meeshay ka soo tagtay oo aadan awoodin xitaa mar labaad inaad gadaal intaa u nuuqotid aa ka dagaalantid horta waqti aad u adag oo dhib badana soo marnay aad u dhib badan oo meel wax laga qabta aan lahayn laakiin maanta wax kale toole ma ahan waxbaan haysanaa waxaan haysano aan ilaashano in wixii imaadaan oo maaragtay maxaa la yidhahdaa la keeno waxaa ka fiican in la xafido dad badan oo masaakiin oo dhiban oo maaragtay ehel noo ah magaaladaas joogaan ku dhiban ayaga in wax loo qabto oo maaragtay maxaa la yiraahdaa ii sheeg la garab istaagay u baahan yihiin waxaan rabaa walaalahayga qurba joogta inaan la hadlo deegaankan baahanta horumarin u baahan yahay mashaariic in laga sameeyo fidno iyo in la kala qubnaado ma u baahno aan isku duubnano dowladda federaalka iyo howlaheeda iyo waxay wada faraha aan kala baxno aan ka talino deegaankeena see lagu horumarinaa oo aan ku horumarin lahayn anaga oo dadkeena wax ugu qaban lahayn muhiimadeena intaas noqoto qof kasta oo social media joogo oo inuu hadla rabo banaadir ha ka hadla iyo horumarka uu la rabo iyo meesha uu la hiigsanayo aydiyiisa iyo fikirkiisa soo bandhigo dowladda ma ahano shaqo aan ku leenahay male maanta laga bilaabo reer banaadir aan nahay aayaha banaadir iyo dadka deegaanka banaadir aan qusay wixii dowladda ku saabsan Soomaaliya oo la midnahay 6 bilood oo dowladda u dhiman waxyaabihii anaga aan qaban lahayn ha noqdaan waxyaabo anaga noqosay aan ku mashquulno waqti adaga soo marna oo aad u adag oo qof kasto bini aadan dareemi karo waqti adagaan soo marnay juhdina waa gelinay wax kalena ma ahane maalin taariikhi oo anaga aan leenahay inay imaataan sugeynay
maanta haysanaa wixii aan raadinaynay. dhalinyarada noo sameeya dalad dhalinyaro oo qurba joog iyo qorax joog ah. nimankiina magaalada muqdisho jooga oo dhalinyarada idinkana hogaamiya, noo taliya, mashruucyaal la imaada, annagana aan dhaqaale idinkugu raadino, idinkana fuliyayaal noqda. waxa keliya oo aan uga bixi karno godkan iyo mugdigan aan ku jirno intaas waaye. sameeya meel aan ku kulanno, idinkana maamula, dadkiina dalka joogo, mashaariic iyo wax laga qabto la imaada, annagana dhaqaalihii aan idin keenno, idinkana fuliyayaasha noqda. fikir la imaada, fulintana lahaada. inta kaleentoo leh annagaa idin qabanayno, wax kale ma ahan. meesha keliya oo horumarka lagu gaari karo oo aan u socono waaye. heer waxaa gaarna lagu jeejeeso oo nala dhaho banaadir xaquuqda yeelanaysa maxaa waaye, shaqadii dowladda idinkaa qaato, maxaa la yirahda wax kasta idinkaa qaato. marka saas la dhahay aniga qalbigan ka dhaawacanahay. adeerkeeyaa dhimanayo, aabaheeyaa dhimanayo, walaalkeeyaa dhimanayo, walaasheeyaa dhimanayso. dadka kalena nabaday goboladooda ku joogaan, nabaday ku shaqaystaan. keygiina ayagii iyo anagaa shaqada ku tartameen oo shirke ee ayagaa igaaga fursad badan. waxaasaan usoo adkaysta aniga, aan usoo dulqaatay, aan u sabray. nolosheeda qof bini aadana ma caynin, nolosheeda qof bini aadana qabiilkiisa uma gefin, nolosheeda deegaan islaameed iyo xaquuq qof leeyahay mana diidin, mana ka hadlin. inaad dhibkiisa iyo dhibaatada haysata aan ka hadla ma ahani. khayr aa idin rajeyna, ma awoodi wallaahi inaan hadlo. waa mahadsantihiin, waa idin jeclahay. habeen wanaagsan.